kusoo dhawow qaraax tiyub fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale dhammaan asxaabteena qaraax tiyub kusoo dhawaada waxyaabihii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda wargeysada waxyaabaha ay ka qoreen iyo sidoo kale saakay oo isniin ah wararka laga daabacay kubadda cagta Chelsea waxay xiiseynaysaa Lazio ciyaaryahankeeda qadka dhexe Sergio Milinkovic-Savic 23 sano jirkaan sidoo kale waxaa la xiriirinayaa Manchester United balse xiise gooni ayuu lahaan doonaa haddii ay kusoo biirtay Chelsea Corriere dello Sport oo Talk Sport ka soo xiganaysa ayaa sheekadaas daabacday golayaha Chelsea Dibat Cartios ayaa hoos u dhigay wararka sheegaya inuu heshiis cusub u kordhin doono kooxda kubadda cagta ee Blues taas beddelkeeda wuxuu la safan doonaa Hazard oo dhawaan sheegay inuu aad ugu farxay 6 sanadood oo uu Chelsea ku qaatay Cartios wuxuu yiri ama saaxiibkiisa Chelsea ee Hazard u sheegay labadoodiba inay ka mid yihiin labada ugu muhiimsan ee waqti dheer kubadda cagta isla jiri doona Evening Standard ayaa sidaas weerinaysa Liverpool waxa ay doonaysaa golayaha Barcelona ciyaaryahanka Holland u dhashay xidiga lagu magacaabo Jesper Cillesen oo 29 sano jir ah Mundo Deportivo ayaa sidaas weerisay England difaaceeda Luke Shaw oo 23 sano jir ah ayaa isku diyaarinaya inuu ka tago Manchester United si bilaash ayuu kaga tagi doonaa Jose Mourinho dooqa koowaad ee xidigan marna ma siin Lyon madaxweynaheeda Jean Michael Aulos wuxuu wada hadal cusub la furi doonaa Liverpool oo ku aadan saxiixa ciyaaryahan Nabil Fekir oo 24 sano jir ah Luton Sports ayaa sidaas weerisay basiktaas waxay doonaysaa Andy Carroll weeraryahanka kooxda kubadda cagta West Ham United oo 29 sano jir ah xitaa inay amaah ku qaataan waa ay rabaan Everton waxay xiiseynaysaa Espanyol difaaceeda dhexe xidiga la yiraahdo David Lopez 22 sano jirkaan Isbaanishka ka ciyaara Valencia iyo Real Betis waa ay doonayaan Man City ciyaaryahankeeda qadka dhexe xidiga la yiraahdo Brahim Diaz oo 18 sano jir ah ayaan amaah lagu fasixi doonin xilli ciyaareedkan waxaa laga yaabaa in lagu daro kooxda koowaad ee Manchester City Guardiola ayaa qorshahaas wada Napoli madaxweynaheeda Aurelio De Laurentiis ayaa sheegay in kooxaha Serie A aysan waxba ku mashquuli doonin Cristiano Ronaldo oo ku biiray Juventus wuxuu sidoo kale aaminsan yahay horyaalkan mar walba inuu ahaan doono mid riski ah oo lagu dagaalami doono waad ku mahadsantahay daawashada videogan fadlan ha ilaabin like iyo share kadibna inaad subscribe mahadsanid